بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال وحن أفدنا فردي اللباد مجالستي فتوضى رمضانك وإن شاء الله تعالى مرتدى نوها فضيلة الشيخ شيخنا شيخ محمد عبده أمل حفظه الله ورعاه إن شاء الله تعالى مجلس كان وقتك سكوبين يهي أيان الشيخ كسؤالي دونا سؤاله أي سوق بيان ددوينه سؤالها سوء إن شاء الله تعالى الشيخ كجواب دونه سؤال كوباد waxay leedahay sheekhana ruux baa igu yiri ma soomi karo ee video iga bixi waayahay ayaan ku iri waana halmaamay laba maalin kadib ayaan bilaabay inaan ka bixiyo fidyadii sheekhow labadii maalin een hilmaamay dayn ahaan miyaan u gudaa oo laba ruux miyaan afuriyaa بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد سؤاشا waxaan u maleynayaa waxay ku salaysan tahay faham oo ruuxaasi fahansan yahay in maalin walba iyo fidiyadeeda inay israacdo oo ayna kala dib dhicin fahamkaasina laazim ma aha ruuxa soomi kari waayey ama da' la soomi waayey ama xanuunaan rijo lahayn la soomi waayey oo markaa ay noqoto inuu fidye iyo raashiin bixiyo bishu hadday dhalato bisha gudaheeda wuu bixin karaa sida ay qabaan culimada badankood maalin walba inuu bixiyo fidyadiisii isla maalinka inuu bixiyo wuu heli karaa oo markii waagu bariyo ilaa maalinka ilaa galabta wuu bixin karayaa waxaa kaloo uu samayn karaa dhowrkii beriba wuu israacin karaa hal mar buu bixin karaa waxaa kaloo uu samayn karaa bisha aakhirkeedu hal mar wada bixin karaa siduu samayn jiray saxaabigii nebiga khaadimkiisa ahaa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah markuu duqoobay oo da' noqday soonkii kari waayey wuu iska afuri jiray kadibna bisha aakhirkeeda ayuu 29 ama 30 miskiin kolba bishu intay noqoto ayuu hal mar cunto siin jiray marka bisha aakhirkeeda wada bixin kartaa dhowr beri baad soo raacin kartaa maalin walba keedaad bixin kartaa inta way ku banaantay waxaad bixin karaysaa raashin caydina hal mar intaad raashin karayso bisil baad masaakiin tira ah iyaad siin kartaa oo ugu yeeri kartaa oo cuni kara kulli way banaantay marka laba beri oo ku dhaaftay qalla ma aha وقتك هذا أتشوكتي رمضان دحدة ما تبحين يساوي والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. سؤال الله بعد وحيلة ذا الشيخ أنا أفرك كتب مركز صلاة اللي جليو أفكيجا وحكوسي جرا ردن فربضن أو أهتمرتي أنكو أفري حتى هدي أن بيو كل غلقضه مركز ردن كفرها بدن صلاة وحبو أودي مايا سيهانت هذا با وحصلنا صلاة مرك الروح السوتاغي إنه عضيده لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حديث النبي قال صلى الله عليه وسلم أدانا كي يا بينين إن أمتي ذا
oonan ka baqaynin waxaan amri lahaa salaad kasta in ay cadaydaan marka cadaygu salaada wuxuu u yahay sunno u yahay gaar ahaan markii afkaaga intaad wax xuntay dhadhankii uu weli ku sii yaallo inaad ka cadaytaa fiican kadibna aad ka luqluqato hadday luqluqashadu ku filan tahayna waa okay gaar ahaan shaygu markuu macaan leeyahay ama dufan leeyahay oo kale xadiid baa jira ay bukhaari iyo muslim iyo soo saareen nebigu leeyahay sal alay ay leeyahay nebigu caanuu maalin cabbay kadibna wuu ka luqluqday wuxuuna yidhi ka luqluqda dufan bay leeyahay marka laakiin haddii ruuxu timirtii uu ku afuray ama raashiinku uu ku afuray intuu ka luqluqdo weli afkiisa uu ka sii dhadhamayo salaadiisu waxba noqon mayso salaadu waa sax maxaa yeelay wax daliiloo ku tusaya ma jiro in dhadhanka afka ku yaalla ama afka ruuxu uu ka dhadhaminayo inuu salaada burinayo ama salaada diidayo daliil ma laha وبالتالي أصلك وحوية صلاة وأصحيصة وحده وملها والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. سائلك حقاية صدحات وحولية هاي هدي فيديو بحنتا هلكي الروح أي تهي لبية طبان كنا شلين العكتاس انتي أن هل روح سين لها هدي أن قيس راشين وقو قضو ميي إيغا قديسا فيديو دا 12 kun weeye wax yidhi ma jiro fidyada ramadaanka laga bixinayo ruuxa soomi kari waayay wuxuu yidhi hadday 12 kun tahay su'aasha saasaa ku jirta 12 kun ma wax yidhi waa 12 kunna ma jiro wax way maalinkiiba waxaa laga rabaa hal miskiin wax deeqi kara muxuu noqon karaa bay fuqaadu isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin nisfu saac xanaabilada iyo say qabaan nisfu saacu taqriiban waa kiile iyo wax waaye sheekh ibnu baaz iyo lajna daa'ima iyo waxay leeyihiin waa kiile iyo nus طبعا waa markii la yidhaahdo saacu 3 kiilo waaye ayaa nisfu saacu wuxuu noqonayaa kiile iyo badh sida marka waa madhabka xanaabilada nisfu saac waaye intaan niskeedna waa madhabka shaaficiyada waa mud haddii la yidhaahdo marka waxay noqonaysaa taqriiban waxuun 700 600 iyo waxoogaa gram u dhigma yacni nus kiilo iyo waxoogaa buu noqonaya raashiin ah maalinkiiba marka haddaad raashiin bisil aad tidhaahdana hal mar wax miskiinka deeqi karo waaye haddaad raashiin caydhiin tidhaahdana intaa waaye haddaad miskiin qoys siiso oo qoys masaakiina aad siisana waa kifaaya way kugu filanta haddaadan qoys siinin oo masaakiin caadi u qaybiso oon qoys ahayna waa kugu filanta waxyaalahaasi wax tafaasiisheeda ay shareecadu gashay ma aha asalkuna way iska bannaan tahay way sidan haddaad yeeshay sidan haddaad yeeshaba wax dhiba male wallahu aclam. جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. السائل كحيقة وحولية هي waxaan qabaa cudurka sonkorowga oo ma soomi karo cunadii fidyada ma u diri karaa abtiyaashay oo meel kala jira su-aasha haddii lasoo gaabiyo wax weeye fidyada ruuxa soomi waayey uu bixinayo meesha uu joogo inuu ku bixiyo masaakiinteeda miyaa laasima mise meel kale uu u diri karaa sida ay qabaan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waa in la diri karo waaye laazima in meesha lagu bixiyo meel kale waa loo diri karaa licadami almaanic wax diidayo daliilaan jirin qaar baa zakada uga qiyaas qaatay oo dhahaya meesha ha lagu bixiyo laakiin haddana waxaa la isla ogol yahay meesha aad u dirayso hadday baahideedu badan tahay hadal male waa loo diri karaa dadka aad u dirayso hadday qaraabo yihiinna waa loo diri karaa abtiyaal iyo habaryaro iyo ilmaadeero iyo dadka xigtadaada iyo qaraabadaada ah sadaqada la siiyo ajir siyaada baa ku jirta silatun wa sadaqa bu nabi sallallahu alayhi wasallam qaraabo xidhiidhisna waa ku jira sadaqana way tahay marka xikmada ziyaadada ama faa'iidada ziyaadada iyo hadday ka baahi badan yihiin taa waa la isla ogolyahay
haddaynan jirin taa lafteeda inaad diri karayso ood meel kale u diri karayso masaakiin joogta waa madhab طائفة من أهل العلم وحده وملا إن شاء الله والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء شيخنا. سائلك حقا وحليه هي فدية بحنتا إنان هل روح أفركي سجوكتيو iyo inaan maalin walba ruux hor la afuriyo keeba ay fadli badan in aad fidiyadii ruuxa soomi kari waayey ka waajibaysa sida laga qaadanayo atharka Anas ibn Malik waxa weeyaan inaad masaakiin badan siiso masaakiin badan oo tira inaad u qaybiso ayay bishu markay dhamaato 30 ama 29 intii tirado bishu ahayd oo masaakiin u yeeri jiray raashin buu siin jiray su'aal bay marka la isweydiiyo hadaan maalin walba hal miskiin hadii masaakiintu kala duwan yihiin dhima leh laakiin hal miskiin oo hadaan soo celceliyo oo aan afuriyo ma iga gudaysaa waay say u badan yihiin jawaabtu waxa Shaafiiciyada Xanabilada iyo koox kamid ah Maalikiyada waxay qabaan hal miskiin hadii maalin walba isaga unaad ku celceliso miskiinnimadiina uusan ka bixin oo wali miskiin yahay way gudaysaa bay qabaan وبالتالي هذا مالي والروح أفوريسو إسلا روحي على فورينيسي وهل روحه ويجوديسا شرط وحا إنه مسكين لأن الروح على أفورينيو مرر بدن وحين اسكو خلدنا لبا ريموت dadka sooman in la afuriyo iyo ruuxii soomi kari waayay fidiyadiisii in la bixiyo labada way kala xukun duwan yihiin cidda la siinayo ku kala duwan yihiin dadka soomi waayay raashinka laga bixinayo miskiin ba iska leh laakiin afurinta iyo ajirka ku soo arooray man fattara saa'iman kana lahu mithlu ajri as-saa'im غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء تاسي خاصكم فقرضة روح صومان أفوريا أجر كيسو كالوليه إيضا كي صومنا أن أجر كيسو حبال لغا نسقى مني تاسي مساكين تخاصكم هذا دون يسو أجر إناد هشو ضد أفورين تودا أجر كودا dadkaad afurinayso masaakiinna way noqon karaan dad taajiriinna wada afurin kartaa inuu ruuxu soomo yahay muhiim marka meesha lagu bixinayo iyo waxa kala duwan fidiyada meesha lagu bixinayo waxaad bixinaysaa haduu fidiye yahay ka go'day ruux soomi waayay waa in miskiin la siiyo haday tahay afurin ajirkeed aad rabtana taajir hadaad afurisiyo miskiin hadaad afuriso soomana ajirkii saa'imka wad helaysaa سحاكتوسي إطلاق حديثك والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. سائلك حقا وحوليه هي وحانا هي معلن دوكسي أنا صومن أيان أردي كحناقي آد أيانا أقراعي صوم كيجي وحميي أولي ما يسارتا معلمين تمركي صوميين أرضها فصحان معلم صومانو حناقيو ilmo garaaxay gaajada marka la gaajaysan yahay iyo xanaaq badan bay keenta marka asalahan ilmaha iyo dadka in la edbiyo oo tacliinta lagu edbiyo way banaan tahay laakiin edbintu waa inay tahay waxaan dhibaato geysanaynin oo aan jirka ilmaha iyo caafimaadkiisa iyo maskaxdiisa aan dhib u geysanayn وحي انتا كسياسة النبي كتب معه ضربا غير مورح وينو صدبات جيسن وحي انتا كسياسة هداد الماء او جيسته دنبيلا تاهي إله معلم ماذا وحي سيادة ودنبي آتك شيء الماء آتك راعضي معلم بانو أهينا كاسا محميس وشيكذا اللي يراد معلم أردي السدو دونه قراعي كراشير كتير تمام معلم كو حوليه هي بنتيسا هي تعليم تلمه وبريو وحقو كو قراعي كرام لو أقوليه هو قياس عن حد كنافسي سنين
hadduu dhaafiyo waa dembi hadduu dhibaato geystana waa lagu yeelanaa hadduu ilmaha dhibaato u geysto waa lagu yeelanaa waan xanaaqsanaana kaa saari mayso sheekhu xanaaqa iga tambatay kaa saari mayso nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam awsini ninkii ku yidhi rasuulka ilaah ii dardaaran laa taqdab buu ku yidhi cadhoonin bimacnaa cadhadu way iska imaan waxaad ka cadhoonto haddaad aragto waad cadhoon laakiin waxaa laga wadaa hadday cadhadu ku qabato isxakamee cadhada muujibkeeda ha fulinin sidaas daraaddeed macallinka sooman ee ilmaha aada u garaacay ee ku xanaaqay wixii dhaafsiisan qiyaasteedii shareecadu oggolaatay waa dembi soonkaagana dhibaatay u geysanaysaa walaa shaka fi dalik lianna soonka dembi kasta uu ruuxu galo marka uu sooman yahay ama ishiisu ha gasho ama gacantiisu ha samayso ama lugtiisu ha samayso dembi kasta oo aada samayso soonkaagii ajirkiisii qayb ka mid ay goosanaysaa waana midda nebigu leehy sal alla alay wasalam laysa asiyaamu min alakli washurbi soon ma aha un inaad cuntiyo cabitaan keliya iska daysee soonku waa inaad xumaanta ka soonto afxumada dhaqan xumada xadiidkii bukhaariguna waa kii ahaa man lam yadac qowla الzuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaama washaraaba marka wixii dembiga kaa dhacay soonkaaga dhib waa u geysanayaa laakiin waxaa loo badan yahay soonku ma burayo oo qaleel lagu dhihi maayo laakiin ajirkii waxbaa gaadhaya dhaawac baa gaadhaya wallahu aclam jazaaka allahu khayr jazaa fadiilat الshaykh saa'ilka xiga wuxuu leeyahay sheekhana yurub waxaa laga soomaa saacado badan waxaan damcay inaan afrika ku soomo anoo ka xeeladaysanaya saacadaha faraha badan ee dalalka yurub soonkaygaasi ka waran dhib ma laha dhul saacaduhu la soomaya ay dheer yihiin haddaad isaga tagto meel saacaduhu yaro gaaban yihiin aado ama dhul aada u kulul intaad ka tagto meel qabow aad ku soonto wax mushkilaa ma laha soonku waa saxayaa lianna waxa weeye mashaqada cibaadaadka dhibaatada ku jirtahay ee lagu dhibaatoonayo bixaddi daatiha iyada allaf ahaanteedu maqsuud ma aha sharci ah maqsuudku waxa weeyaan inaad cibaadada gudato cibaadadaasi inaad ku rafaado rafaad ziyaada aada u gashaay waxba laasima ah haddii meel ay rafaad ziyaada ah ku leedahay oo meelay yaro dhaanta aada aado dhima leh cibaadadii inaad gudatay unbaa muhim ah taxaayulna maaha iyo xeeladaysi aada cibaadadii ka xeeladaysanayso cibaadadii waad gudanaysaa laakiin mashaqadeedii iyo dhibkeedii unbaad khiyaar kale qaadanaysaa oo inaad iska yaro fududaysaa taana waaba yaraatee wax dhiba kuma jiro walow dadka ku soomaya saacadaha dheer iyo meelaha soonku uu dhibayo dadka ku soomayaa ka ajir badan oo nabigeennu sal alla alay wasllam waa kii lahaa xadiidkii cumradii umulmu'miniina caaisha radia allahu tacaala canhuma waa kii nebigu lahaa sal alla alay wasalam ina laki min alajri calaa qadri nasabiki wa nafaqatiki yacni ajirkaaga waxaad leedahay qadarka aad dhibaatadaadu dhan tahay iyo xoolaha kaa baxay intay dhan yihiin marka ajirka siyaado wuu la imaanayaa kolba cibaadada dhibka loo mariyo dhibka lagu ruuxu ka mutaysto laakiin cibaadadii inay asaxdo inaad uun sideedii ula timaadaa muhima marka inaad meeshan ka tagto halkaa tagto aad kuleylka ka cararto saacadaha dheer ka cararto dhib ma leh wallahu aclam jazaaka allahu khayr jazaa waxsana ilaykum sheekhana saa'ilka xiga wuxuu leeyahay waxay leedahay waxaan ahay maamo lug baan ka jabay waxaana lay saaray faashad caadadii ayaana igu dhacday haddana way iga dhammaatay lugtiina biyo looma dhoweyn karo ee sideen u tahaaro qaata allah qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa'a axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum الnisaa falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan طayiba haddii ruuxii biyihii uu kari waayo
ama wuu waayey ama xanuun dartiibuu u isticmaali waayey markaa gebagabaysta waa la yidhi tabaaraka wa tacaala boodhaysta waxaa la mida sidoo kale haddii biyihii aad heli karto laakiin isticmaalkooda uu kuu diido qabow aada uga baqdo inay dhibaata kaa soo gaadho biyuhu aada u qabow dartood marka waxaad qaadanaysaa beddelka sharciga oo ah inaad gebagabaysatood boodhaysato haddii marka lugtii aad ka weysaysan lahayd ay jaban tahay kab ma saaran tahay qabaysna kugu waajibay oo caada ku dhacday maxay samaynaya beddelkay qabaysan lahayd way gebagabaysan way boodhaysan sidaasayna ku cibaadaysanaya hadhow markii ay lugtu bogsooto kabmada laga qaado bogsooto biyo la marin karo markaasay qabaysanaya macnaheedu waxa weeyaan gebagabaysigan iyo boodhaysigan way kusii cibaadaysanaya salaadihii cibaadadii bay kusii tukanaya laakiin hadhow markay cilladii meesha ka baxdo waxaa la rabaa inay qabaysato marka inay qabaysato waaye xadiidkii bukhaari ku jiray baa ku tusaya nabigeenna sal alla alay wasalam nin wuxuu arkay gadaal fadhiyo oon dadkii la tukanin war maxaa kugu dhacay rasuulka ilaahay janaaba igu dhacday oo maa gebagabaysatid oo wuu gebagabaystay kaa dhowaa biyo yimaadeen qabaysaa leh xadiidkii kalena waa tilmaamayaa xadiis badan baa kusoo arortay marka gebagabaysigani marka wuxuu kuu bannaynayaa inaad cibaadadaada wadato laakiin hadhow qabays baad la imaan marka gabadhu haweenaydu ha gebagabaysato ha cibaadaysato hadhowna ha qabaysato insha allahu tacaala markii ay meesha u bogsooto wallahu aclam soonkeedii miyay sii soomaysaa soonka maxaa diiday caadi way ka go'day waxay ka hadlaysaa waxa waaye lugtii kab maa saaran haddii laga furayna biyihii bayna qabalayna marka cibaadadii ka haysa waa salaadii soonkii maaha جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم شيخنا سائلة حكتة وحا إلى هاي نينكيغا أيا إفوري intii aan ciddada ku jiray ayaa uur igu soo baxay kadib waan dilmay dhiiggii dilanka ayaa istaagi waayay ilaa 3 sano miyaan guursan karaa hadda haddii dhiigga dhalmada ilmaha soo dilmay ama way dhashay haddii uu istaagi waayo ama dhiiggii caadada la moodaya istaagi waayo oo uu daa'imo 3 sano u socdaa bay leedahay gabadha markaasi ma aha dhiiggii dhalmadana ma aha kii caadadana ma aha waa nooc saddexaad oo loo yaqaano istixaado loo yaqaano waay dhiig furan baa la yidhahdaa ama dhabar furan dhiiggaasi noocaasi joogtada ah wuu ka xugum duwan yahay dhiigga dhalmada iyo midka caadada wuu ka axkaam duwan yahay oo kan iska socdee joogtada ee la yidhaahdo dhabar furanka ma dhiig furanka la dhaho ma diidayo inay la cibaadaysato way tukan way soomi ninkeeda way is arki karaan sidii iyadoo daahir oo kale u dhaqmaysa way uun iska nadiifin way iska nadiifin marka dhiiggaasi 3 sano socdaay waa dhiig furan ama dhabar furan waay وبالتالي waxaa loo baahnaa inay kala socdo dhiiggii caadada ahaa wuu imaanayaa intuu socdo dhiigga dhawr furanka ah in la kala sooca loo baahan yahay marka oo waxaa lagu kala soocaa dhiigga caadadu midabka iyo urkaba wuu ka duwan yahay kan dhawr furanka taa waa lagu kala soocaa hadday ku kala sooci kari weydana markaa waa inay noqoto caadadeedii maalmihii ay caadadu hayn jirtay intii uusan ku dhicin dhawr furanku dhiig furanku intuusan ku dhicin imise beri bay caadadu hayn jirtay 7 beri miya 5 beri miya bay u noqonaysaa hadday midab ku kala saari kari weydo iyo urka sidaasaa marka loo baahan yahay inay kala ogaato caadadii imise ku dhacday oo dhiig furankan iyo ay kala saarto caadadii asal ahaan waxay ahayd markii ay la furay iyadoo uur leh haddii uu ilmihii uurka ku jiray soo baxo ama soo dilmo caadadeedii ciddadeedii halkaas ku dhamaanay way cidda baxday laakiin haddii ay dhiig ku cidda tirsanayso isla markaana uu ku dhaco dhiig furanku ku dhaco waa markaa inay kala saarto
dhiiggii caadada ahaa iyo dhawr furanka dhiiggii caadada saddex markay heshay markaa ciddada ka baxaysaa isagoo kii dhawr furanka uu socdo iska socdo wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء وأحسن إليكم. شيخنا سؤالي وين ماذا سؤال كلو زيادة يعني قدرية شيخنا ضد كان نافت قبا بهاشا براشدة نافت سوق دوية سببها السيا وده يعني صون كود ميو شبعها يا ما بخاخ الرب وحلو يغنى dadka neefta qaba isticmaalo baashan la yiraahdo bakhaaqda la yiraahdo ee lagu buufiyo afka sanbabada furaysa wuxuu ahaayay soonka ma jabinaysa culimada mucaasiriinta majmaca fiqiga Sheikh Ibn Baz ibn Uthaymin culimadu waxay leeyihiin soonka xuma yeelaysa sadaradeed ruuxa haday isagoo sooman ay neeftu qabato wuu isku buufin karaa waxay leeyihiin waa uun hawo sanbabada furaysa laakiin wax jurmi lahoo ama biyaa ama dhacaana ama cunto ah oo galaya caloosha ma aha waa sidii uun hawo oo kale waay taqriiban sanbabka furaysa saasay ku sifaynayaan soonka marka xuma yeelayso dadka marka neefta qaba haday neeftu qabato way isticmaali karaan soonkooduna ma jabayo wallahu aclam جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. شيخ سؤال شان كسو قلنا ذي نوحوي بحنت ديجا لشيبارك وبارة هيو أما متك التبرع أما متك السنك ضدك كيمان يسنقرر كا سيدابي نقرأ يعني حكونا ضد شيخنا شبين تصون كمر كلوه روحا هديو دي كيمات نور baa gaaray dhiig baa ka soo baxay ama wuu gororay ama jirkiisa qayb ka mid ah dhiig ka yimid ama laboratory-ga ama labka ayuu tagay oo dhiig buu iska qaaday test baadid ah soonkiisu waxa ma noqonayo laana wax daliil oo ku tusaya ma jiro inuu soonka jabinayo asalkuna waxa weeye cibaadadu haday guntanto oo ay sugnaato waxaasaa jabinaya in la dhaho daliil bay u baahan tahay wixii aan daliil loo haynin cibaado ma jabiyo marka wax daliila looma hayo ta kale weeyaane salafkii iyo saxaabada iyo ayagoo sooman baa dhaawacyadu gaari jireen oo jirkooda dhiig ka imaan jiray oo haddana soonkooda waxba ma noqon jireen waana masale la isla ogolyahay inuu soonku waxba noqonayo waxaa ka duwan bay leeyihiin culimada qaar ka mid ah inuu ruuxu dhiig fara badan ka bixiyo jirkiisa oo uu muxuu ahay ruux u bixiyo dhiig siiyo ayada lafteeda waxay la mid tahay bay leeyihiin xijaamadu waa toobinkii waay yani toobinka waxaa ku soo aroortay laba xadiis ruux isagoo sooman inuu istoobo mid waa xadiidka caanka ee sunanka ku sugan oo nabigu wuxuu soo maray sallallahu alayhi wasallam laba nin oo istoobaya oo sooman markaasaa nabigu wuxuu yidhi afṭara alxaajimu waalmaxjuum ka toobaya iyo ka la toobayaba soonkoodii waa jabay xadiidkaasi sunankuu ku yaala waana xadiis sugan waxaa kaloo jira xadiid kale oo saxiixa ku soo saxiix bukhaariga oo sheegaya nabigu inuu istoobay sallallahu alayhi wasallam isagoo sooman waxaa kaloo jira xadiid darqudni qeyrka soo saaray min xadiid Anas labadaa nin markuu nabigu arkay oo hadalka yiri kadib inta wixii ka dambeeyay buu ogolaaday in dadka soomana istoobi karaan axaadiista marka la sugay fuqahaadu markuu kala aragti bedelayeen qaar waxay leeyihiin soonka waa jabaya qaar waxay leeyihiin ma jabinayo والصواب سيده إلى حق بدن وحوي شركة ديق لغا ساري أما توبين هاللغو سارو أما آلك لهال استعمالو هاللغو ساري إنو سنسون كتشبينينين أيا إلى حق بدن والله أعلم بالصواب. جزاك الله خير الجزاء وحسن إليكم. إن مجلس كيني لباد فتوى رمضان كا انت أيو ينوغو إجيهي إن شاء الله تعالى انت أنكو كل مدونا إن شاء الله تعالى مجلس كحقائي بريتا انت أيان كوكا بقبيننا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.